السلام عليكم وهذا حسو قلدي ما joogto culimadii iyo dhalinyartii iyo odayaasha xaafadu waa kuwa mudan leeyahay ma ogtahay kala dad masaajidkii dhiibateen dhowr yar oo qodobo masaajidkeena khuseeya iyo masaajidada iyo salaadeena taabanaya qodobka ugu horeeya wuxuu yahay waxa jira odayaal salaada jimcaha marka la galo ciidamada safka hore dhigta oo ku calaamadsada sidii baro calaamadsanayaan dibadna xagga dambe dadka dhex fadhiista ciidamadana xagga soo ilaashanaya safka hore waa kii rasuulku lahaa dad khayr ku jiro ogtihiin wad isku leen lahayd qof aduu yiri maadu sira ciidamada iska turkana ana fadhiya adeerska iska ciidamada iska dhig boornaya oo hadda adigu fadhida maxaa umada ku dhex fadhiisiyo xagga dambe ku fadhiisiyo ilaa waa salaad jimco dad kule albaabadii taageen meel fadhiistaan bay doonayaan ma xaast bad ciyaaraysa marka dadka ciidamada gataal kana fadhiisay dadka buuxisay umada masaajidkeena maanta ciidamada bosafka hore lagu calaamadsanaya ma jirto nin walba goortu yimaadiyo halku yimaado fadhiisanaya وطلبات مساجد مركز salaada ku jirto salaadaha qaar waxaad arkaysaa qof sujuudi sheekhi ka dambeynaya oo sheekhi markuu soo rukuuc isleeyahay soo rukuucayo si kacayo degdeg u kacaya waxaad moodaa inuu sheekha simifiina la ciyaariyo gool ku leeyahay uu waqtiga ka ridayo tusaalayaashana waxaan idinku soo qaadanayaa xumaaniga ma ahe hadaan sidii berigi hore idin kala hadlo tusaale idinku soo qaatay geel iyo hal iyo waxyaaba geedaan idinku soo qaato diinadani fahmin ba macquul ah laakiin xagga di fahmisan baan waxii ka sheegaya iyadana wayna saxaynaa oo imaamka amarka laga qaadanaya laga mana dambeyn karo laga mana horeyn karo oo imaamka markaas amarka waxa imaamka imaam looga dhigay inuu maqashinaya Allahu akbar inuu sheekha la socono waa taxigta salaada marka laga baxayo waxaad arkaysaa nin markuu saayida assalaamu alaykum garab ku dhunkanaya labada malaa'ika garabka ka saaran waxaad mudaynu kaliya arkayo salaada sida looga baxay iyadana barina ee sunnada ku soo aroortay waxyaabaha qaldan inuu ka reebay kamid tahay salaada ta kale ee jirta qodbadii jimcaha masaajiddeena waxay noqdeen meelo lagaga hadlay dawladda iyo siyaasadda iyo kalba balorka la qaato iyo waxyaabaha dawladdu maalin walba ka dhaca laga hadlay masaajidda taasina waa qalad oo waxay qalad ku tahay baan doonayay meel yar dhow ka fahansiyo imaamku markuu qodbadayna minbarka fadhiyo ama minbarka taagan yahay dhowrka qof ee soo hor fadhiya ee salaada jimcaha fadhiya nin baa mucaarida nin waa muxaafid dadku isku wada mid maaha sheekhu markuu dawladii wax ka sheego minbarka taagnaa dadkii maxaafidka haba xanaaqaya oo masaajidkii inta ka tagayo dib ugu mid kaliya waxaan sheekhay intii dawladdu ku hadlaayo oo qaldan yahay oo dadkii imika ma baal baqdaa wal cadaawa dhexdooda dhigtay mise waxbaad u sheegtay oo midays iyadana way naga reebanta siyaasadda iyo masaajidka laga hadlo waxyaabaha dibadda ka ah qodobka xiga wuxuu yahay diintii waxay noqotay waxaan aragtay ku qiimeeyno oo qofkii bini'aadamka aragtay baa lagu qiimeeynaya tusaale ahaan maanta dad mi ka keento oo khamiis soo xidho yaro gadh leh cadayna u dhibto koofiyadna u xidho automatic bid update ka wada qaadanaysa waa sheekh maqaxyadu soo galo sheekha kursiga u baneeya haduu xalaaliyo wuxuu yahay wuxuu guday wuxuu galay wuxuu yaqaan cidda ma taqaan nin yaro kale miskiina oo taqiya oo alla ka cabsi leh hadda suudu xidho timaana yar gaabisadu taaloogto halka istaajiso nin walba wax la wada qaadanayo wallahi ninkani markuu yiri yahay agaasimi waxba cunay xoolihi umada ku maqan هذا قلبي جيس إني موجي قف كواين لقو قيمة يح أعماش إلهي ومضى أبو ريبان شركين يجي ولبس كين يجي وإلهي وحيجي يقلوب تينا وحنا ونكتب قف كبني هذا كان لقو قيمة يا أعماش كسر فليسة يا حيابها إنه كلا كلامي لكن من در كانوا قيمينا تاسنا وين جرب بنت هاي ما تلاقي بلعبه مش سمعين على الكافر ده هذا اللي يري ياضي على البله قلب كان كدر يروح يجي إنك الصومالي هذا إنه هيدا كان كوحنا لنا هي وحويان علماء الله مسيح كرو إحنا لو بشيء كرو علماء وبني آدم عمر بن الخطاب وكوبي طبعا مواضيع قرآن كو راعي وشاري وكان هذا اللوجو بشاري سكون نور أيه هذا الله أمرك خلافة قبته واري صح هتان قلدمه وواكي مركي وأرمها جور وقيب كم ده حاصل لقى قبل عياد السقاطين ماشي في الدي محورها عمر بن الخطاب أخطأ عمر وأصابت امرأة أبوها عمر وقلدمه قبل بقى سيبتور أنت شايف إننا شيخنا لما صحي كره نبيذ أو إلهي صادرتي أو وحي يكون سعده أيام مركي قلدمان لسحي أو إلهي سحي والعنانية حتى القرآن كبار كذا إننا نادر الصومالي دقيقين وحويان شيخ لما صحي كره إحنا لو مش يجي كره ورني ما أنت ده مساج كي دورتين والإمامية دورتين يا خديب كم مساج كينا ورتا قلدما يصح أو وحي الشيخ وحيابها هو بدن دين تين خلق الجلينية أما قرار كماني والبين قطعة وحنين الصحنين وكم يرسلنا وبيسكي وحيابه يجوه سيوية وأنا وحيابها الدين تينو اللي تيجي كرا أما أعماش ينو اللي جروبين كرا هذا إنه يجا الصحنه أي إنه توابين تيجي كرا
iyaga bas xideedii hawl ka taagan tahay siyaasad iyo hawlo kale marka laga yimaado diinta dhexdeedii banu khilaaf isku haysanaa nin walba intuu ka fahmay ayuu ka sheegaya sidii uu fahmayna uu sheegaya qodobka ugu dambeeyay kaga tagay ugu muhiimsan wuxuu yahay. Assalaamu calaykum.